Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my beloved students. My name is Ma'alin Muhammad Habib and I am from Grand Online Academy. Welcome to our lesson for today on page 8. Today we will be continuing with page 8 inshallah ta'ala. So dhawaada ardayda sharafta badan kusoo dhawaada Grand Online Academy waa macalinkeeni Ma'alin Muhammad Habib. Maanta waxaan sii wadan doonaa casharkeeni oo ku yaala bogga 8 ee bookeenan inshallah ta'ala General English. Today we have an activity. maanta waxaan haysanaa ama qaadan doonaa waa activity ama layli biidnillahi ta'ala. xaggan waxaa lagu yiri sidii noo caadada ahayd ama aan ku soo aragnay activity-da hore, fill in the blanks buuxi meelaha bannaan. marka xaggan waxaa lagu yiri look at Asad's family tree. How are these people related to him? Look, eeg baa lagu yiri at Asad's family, bal eeg baa lagu yiri qoyskan Asad, qoyska Asad eeg baa lagu yiri ama familkiisa. Tree ee geedka sida geedka kale imka loo sameeyay. Okay, imka kale waa geedkii caleemihiisa kale. How su'aal baa laga weydiiyay, how are these people, sidee dadkani related to him ay isaga markaa ula xiriiraan, sidee markaa qaraabo u yihiin, sidee wax u wadaagaan. Okay, bal aan eegno. kani waa Maxamed, Sara waa Sahra laga wadaa, Halima, Asad, Shamsa, Ahmed, Fatima, Ibrahim, Aisha, Sumaya, Bilal. intaa weeyaan. waa imse qof? waa maxay? waa 10 qof weeyaan. 10 qof see u xiriiraan. Maxamed baa lagu yiri is, okay, halkaa inaad sheegtaa la doonayaa. Maxamed is the father. ayaad oranaysaa Maxamed is the father. Maxamed waa aabihii buu noqonayaa. Sarah is, adigaa sheegaya. Shamso is, Halima is, Bilal is, Ibrahim is, Sumaya, okay, Ahmed. saasaad u sheegaysaa insha allah tacaala. adiga ayaa ku buuxin doona casharkeena hore aynu soo qaadanay biidnillahi tacaala, ama marka ereyada la tacaluqa family vocabulary, ereyada familiga. Okay, the second part, answer the following questions. ka jawaab su'aalahan soo socda ayaa lagu yidhi. Talk about your family, bal ka hadal adigu qoyskaaga ka waran baa lagu yidhi. Okay, do you have a small family or a large one? qoyskaaga ma mid kooban oo yarba oo dad yar ka kooban, mise waa mid ballaaran oo dad badan ka kooban? Who is your brother and what does he do? waa ayo walaalkaa, inankada walaalka tiin waa ayo, muxuuna qabtaa, muxuu ka shaqeeyaa, muxuu qabtaa? Who is your sister and what does she do? waa ayo walaasha, maxayna qabataa? Is anybody in your family a teacher? Is anybody in your family a teacher? qof ka mida qoyskaaga ma macalin baa? ma jiro qof qoyskaaga ka mida oo macalina. Okay, who is your nephew? Who is your nephew? nephew waxaa la dhahdaa inankaad abtiga ama adeerka u tahay. waa ayo inankaad abtiga ama adeerka u tahay. Who is your niece? niece waxaa la dhahdaa inanka inantaan idhaahdo inanta abtiga ama adeerka loo yahay. sidoo kale eeg, niece waa abti ama waxaa loo noqonayaa adeer buu ninkii noqonayaa. qofkii dumar maxay noqonaysaa? edo ama habaryar. afartaa bay noqonaysaa. nephew inanku noqonaya inanka edada, habaryarta, abtiga iyo adeerkaba loo yahay. niece waa inanta abtiga, adeerka, edada iyo habaryartaba loo yahay. niece-na waa inanta, nephewna waa inanka. Who is your cousin? Who is your cousin? cousin wuxuu noqonayaa inanka ama inanta, ilma adeerka, ilma abtiga, habarwadaaga, intabaa tiin. maxaan ku yidhi waa inanka ama inanta, ilma adeerka, ilma abtiga iyo habarwadaag intabaad isku tihiin. Okay, who is your uncle? uncle waa adeerka ama abtiga. Who is your sister in law? waa ayabaa lagu yidhi dumaashidaa. sister in law, dumaashidaa. Okay, who is your brother in law? brother in law waa seediga. Who is your father in law? father in law waa sodoga. waa ayo sodoga baa lagu yidhi. intaasaad ka jawaabi doontaa insha allah tacaala. qaybta u dambaysayna gudubna oo pronunciation oo dhawaaqa. Can you pronounce the R letter correctly? ma ugu dhawaaqi kartaa baa lagu leedahay xarafka R. ra baa loogu dhawaaqa marka phonetics kala jooga. ra
read the following words bal akhri baa lagu eriyada soo socda brother 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 sister father marka luqada waxaa jira different accents British accentska aarta ma akhriyaan waa brother Mareykankuna waa brother sister father ayay ku dhawaaqayaan Mareykanku Britishkuna waa father father and member marka mar sidii Britishka idinku dhawaaqaya marna sidii Mareykanka aan ku bilaabo Britishka brother brother sister father and member marka Britishku arta way qariyaan Mareykanka brother sister father and member okay read the following numbers baa lagu yidhi bal akhri nambaradan soo socda 33 93 93 83 35 33 93 83 35 saasaa lagu dhawaaqaya and that's it for today. We're going to stop here. Thank you so much. See you next time in the next lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.